كنت وعن wanaagsan dadkan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-deena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Studio-deena maanta waxaa noogu marti ah aqoonyahan Daaci Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo aad si weyn u taqaanaan oo ku nool isagoo magaalada Ottawa ee wadanka Canada haatan si booqasho ku jooga magaalada Minneapolis. Waxaan ka wareysan doonaa guud ahaan arrimaha geeska Afrika iyo waliba arrimaha caalamka. marka hore aqoonyahan Daaci Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir aan ku soo dhaweeyo studio-deena Somali American TV. soo dhaw Sheekh Cabdiraxmaan marka hore. jazakallahu khair aad baa maasantahay walaalkay Ali Xaraara waan dhawahay adamadan dhowr jeer baad soo martay oo Minneapolis timi socodkaaga muxuu ku saabsan yahay iska private ba mise arrimo gaar ah oo timo ma alxamdulillah culuma iyo asxaab ay yeedhay iyo kana marti wahay waxa laga yaabaa bisha Ramadaan inaan inta ugu badan ila qaato insha Allah ma sha Allah soo dhaw masaajida Soomaalida iyo ma sha Allah masaajida kale muslimiinta insha Allah ma sha Allah soo dhaw markale aan ku weydiiyay sheekh su'aasha ugu horeysa waxaan ka bilaabi doonaa wadanka Djibouti. Djibouti waxa ka jira wasiir hore ama wasiirkii maaliyadda hore iscasilay oo lagu magacaabo Cabdikariim Aadan Sheer ayaa maalintii Arbacadii galabnimadii la qabtay oo xabsiga Gabood la geeyay. Waxa dowladdu dhinaceeda ay ku eedeynaysaa isdaba marin malaayiin dollar ama lacagta faranka oo malaayiina isaguna wuxuu leeyahay lacagtaas saxiix laga been abuuray ayaa dadka ugu sareeya Djibouti ama madaxda sare ay isticmaaleen lacagtuna iyaga ku maqan tahay arrimaha maxaad war naga siin kartaa marka hore alxamdulillah wasalaatu ala rasuulillah ba'da marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan kula fadhiyo telefishinka ma sha Allah marka labaad ninkan la yiraahdo Cabdikariim Sheer wasiir hore oo arrimaha budgetka ah muxuu yahay horta inaan si fiican ku gartaan okay ninkan wuxuu yahay nin technocrat ma aha siyaasi technocrat waxa dhada qofka ku fiican xafiiska shaqaynta nin wuxuu ahaa shaqooyin badan dalka soo qabtay ilaa wuxuu soo qabtay shaqo la yiraahdo hufanaanta oo Afrika iyo Djibouti uu shaqeeyay nin wuxuu ahaa dhinaca ku amaanan dhinaca technocratka shaqada xafiiska iyo hufanaanta ku amaanan buha in hawl karo dadka faraha lagu fiiqo ee reer Djiboutina uu ahaa dawladda Djibouti waxay leedahay arin yaro yaab leh ninku markuu aad u fiicnaado oo magaalada uu warkiisu galo shaqo dawladeed ba wasiirad ba loo dhibaa marka waxa la rabaa qofkaas in la dhooqeeyo in la fashiliyo way dadka qaar way dhowrsanaadaan dadka qaarna way ku shumaan isagu wuxuu ku jira dadka aanan aad ugu dhex milmin systemka isdhowrayay iyo ku jiray markaas hadda waxa markaa la arkay wax badan la waa diiday oo dawladdu ay jecleyd inuu sameeyo wax badanna waa ogolaaday yani ma aha qof malaa'iga ma aha taas waxa uu keentay ina loo sameeyo waxyaalahan imika aan sheegin marka Cabdikariim waxay dawladdu ku haysataa sida sheegtay inuu rag dawladda la shaqaysta oo ah maalqabeeno ka qaata qadaraasyada dawladda inuu qadaraasyo siiyay oo la qaatay sidii caadiga u ahaan jirtay wasaaradaha maaliyadda iyo budjeegu qadaraasyada way bixiyaan madaxtooyadu laakiin dad ay leeyihiin marka dadkii baa leeyahay uu la qaatay uu la sameeyay dadkii qaar baa loo yeeray qaar baa ictiraafay oo yiri intaas oo milyan baa jira qoray 400 oo milyan oo dollar 400 oo milyan oo faran lacag aad u badan oo noqon kara 12 milyan oo dollar inuu ninkaasi husiyay oo jeeg buu soo qoray dawladana uu keenay laakiin jeegii markii la geeyay banki wuxuu noqday jeeg wax ku jira marka waxba soo celiyay buu lahaa lacag ba soo celinaya nin la shaqeeyay baa saas samee lagu yiri marka ninkani maadaama uu yahay nin technocrat oo aad u fiican dawladuna ay sida rabto waxa ay la tahay inuunan wax mushkilada oo isaga shakhsiyadiisa in ayna jirin yani khalad uu galaa waa bini aadam laakiin ma aaminsani inuu yahay nin xoolaha xatam xayalay hal guri buu leeyahay wasiiradaha Djibouti waxay leeyihiin يكون وزارة نرجع هانتي بدن قرية بدن بيليهن هل جاري أم بلا بجاري سي حاسكيس وشقيستان قبل أو قبل الفاميلي العقل كدلتي
marka waa nin oo si naajara u noolo dabiiciya qof maaha yani baqbaq badan marka waxay la tahay waxaan lagu sheegay dhakal xoolaha inuunan ahayn oo maxkamad nadiifan haddii jirto waxaan oran lahayn maxkamadu ha baadho maxkamaduna waa maxkamad sida la rabo yeesha oo telefoon lagu xukumo xataa waa loo xadiday inta qofka xidhiso inta qofka laga mamnuucaya siyaasadda inta badan waxaa la xukumaa Djibouti min 6 bilood ninka siyaasiga ilaa sanad iyo 6 bilood inta u dhaxaysa la xukumaa waxaa kaloo loogu daraa 5 sano oo mamnuuc ka yahay inuu siyaasadda soo galo waa 5 sano ee soo socoto oo waxa dhici doona qolihii baarlamaanka iyo waxa dhici doona madaxtooyadii marka xisaab la suugayaa intaas baa laga shaqeeyaa qof kastiba intaas laga joojiyaa Sheekh Cabdiraxmaan isagana waxa la soo xiray inankii khasnajiga dawladda ahaa oo lagu magacaabo Sahal Saciid Cawaale xariga Sahal Saciid Cawaale wuxuu ku xiran yahay ka wasiirkii hore maaliyadda ee Cabdikariim isku xirantay laakiin waxa laga yaabaa inay Sahal ay tahay dawladdu system ay wado oo ah inuu ninkan hadhu wax qirto wax jira taasi waa suurtagal sinoorada la dhigay ka mid tahay sinoorada la dhigaya koob laba saddex marka inuu qirto ambase waxa dhici karta in isagana san loo haysto laakiin aniga ilama aha in Sahal wax lagu haysto waxa leeyahay Sahal marxaatu noqon doona haduu soo lacagta inuu yiraahdo wasiirku uu bixiyay ana la ogaan waxa hore aynu ogeyn in la soo xiray in kasta la sii daayay taliye ciidanka booliska sidoo kale xabsi guri isna la geliyay ninka ciidamada haysta waa maxay Djibouti xarigan cusub ee bariyahan u dambeeyay ama maalmahan u dambeeyay dadka loo xirxiray siyaasiyiinta ama taliyaasha ciidamada maxay tahay sababtoo sare horta ninka ciidanka haysta lama hubo in la geliyay xabsi guri laakiin waxba jira maxay waxay aad saaxiib u ahaayeen ninka ciidamada booliska haysta ninka ciidamada booliska haysta waxa la dhageystay isaga iyo madaxweynaha oo wada hadlaya telefoonka waxa uu markaa madaxweynuhu ku leeyahay nin Cabdiraxmaan la dhahdo oo xisbi raad la dhahdo maamula oo mucaarad ah xid hadii kala rasaas ba madaxa ka dhacaya hadalkiisa waa rasmi ah madaxweynaha saaranaya rasaas ba madaxa ka dhacay haduu deyn waayo ubadkayga iyo xaaskayga macnaha ubadkiisa iyo xaaskiisa madaxweynuhu waa in la daayay waa dad bini aadana oo waliba siyaasadda ku jireen laakiin dhinaca kale marka u rogtid siyaasadda way ku jiraan oo xoolihii dalkii gacanta ku hayaan oo waxa weeyaan meelaha maanta ugu xoolo keenis badan iyo gacanta ku hayaan marka taas marka waxay keenaysaa in laga sheekeeyo dhacdo dadkani xoolaha dawladda faraha ka qaadaan iyaga shakhsiyadooda maaha isaguna uu dhibsado madaxweynuhu dhibsanaya wuxuu rabaa inaan laga sheekeyn dambiga waxaa jira Afrika iyo wadannada islaamka iyo waxyaalo cajiib ah jira ninka madaxweynaha ah waxay u haystaan inay dhulka iyagu leeyihiin waxaan u xasuustaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle journal Faransiiska ka soo baxo dhacday Jean Afrique baa wareystay waxa lagu yiri qofka Afrika ugu jeceshahay ama adduunka islaamka iyo carabta waayo ee ku dayatid wuxuu wasiir al-Abidin madaxweynaha Tunisia ومدحين تونسيا وقرطها زين العابدين مركز زين العابدين اكتي تاريخ ديسا صدح ميرود بس كيجيين اسماعيل عمر جيل وعايز كيجيين دين على ديكتاتوريتها هي امنيه سكيورتي كانت حوق لو هايو عايز كيجيين خولها دولده او زين العابدين هي حاسكيسا هي سيدياشي هي اوبدكيسو اي قاطين انا وكلا سوقنين اريد صدحاد اسكيجيين waxa weeyaan in ay dadka ay u diidaan xurriyadda caamka oo wadanka albaabiyo waxa loo yaqaano bulshada rayidka la tirtiro de markaas dayla Tarabulus islaantii loo rajay oo qabi jiray Batal Abidin oo milyaar iyo siibti oo ilaa Canada lacagta soo gashay sidii walaalaheedii wax dhan oo dib dawladda Canada ay uga qaad marka asaas daraadid waxaan leenahay ka sheekeynta taas baa keentay Cabdullaahi marka telefoonka ayaa lagu xantuulay malaha isaga bixiyay telefoonkan madaxweynuhu isaga duubay malaha bixiyay baa lagu haystaa marka shaqadiisa looga joojiyay ninka la doortay marka isagu guriga ayuu iska fadhiyaa imikana waxa igu maqalay in la gelinayo maartay hawlgab in la gelinayo isaga la xidhan maxaa yeelay hawlo badan buu la soo qabtay hawlo badan baa dhex maray saray kala haystaan marka qofka noocaas dawladda Djibouti way dishay ma sidii siyaabo kale oo naxariis qofka markuu meelaha gaadho waa in laga takhaluso ma aha inuu shaqadu laga yeelo meelaha meerasto laan wuxuu hayaa khabar muhiim ah waayahay codka qura ma bixin oo
baraha bulshada lama gelinin dhinaca madaxtooyada ka yimid ama madaxweynaha ka yimid waxaa jiray codod kale oo ka dambeeyey oo hal tusaale haddii aan dadka siiyo ay ka mid ahayd gabadhu madaxweynuhu dhalay oo la hadlaysay xogayaha ninka u ah Ismaaciil Cumar Geelle oo iyana social media la geliyay bariyahan dambe Djibouti cododkan la iska duubayo social media la soo dhigayo oo dhinaca mas'uuliyiinta u waaweyn Djibouti waa maxay sababta keentay bariyo ma jirin waayada hore waxa weeyaan waxa la dhahdaa قاعدة شرعة واحد ترادا الجزاء من جنس العمل هوشاد قبتي أبالك قوي شعب غير جيبوتي قف بالود يستاهل كم مليونين قف آل دقيسن مجرو عليهم وحال السوق بسدي صدح مهرات بالغ بسدي قلبك يقدم به وحال إسرائيل بالغ بسدي شينها يا لغ بسدي وحال تجي وطن كإمارات كإيو سعودي إيو مصر بالغ سوقاتي عرفتينا si qof bini aadana oo loo dhageysan una jirin marka hadad codkaaga ayaa la duubay markaaba waa la ogaanayaa in codkaasi maray meesha dadkii markay la wada dhageystay wasiiradii wixii oo dhan waxay bilaabeen iyaguna inay dhageystaan marka maxaa la bilaabay shaqo cajiib ah la sameeyay shaqada cajiibka la sameeyay waxaan dad wasiiro ah dad madax ah ayaa kuwa wax dhageysta lacagsi oo ninkuna wanaka waan dhageystay waxaan noo soo dhageysto noo keena noo duuba marka taasi waa mid dawladda ka yaab tahay waa yakii waxa dhageysanay hadii mid labaad waxa weeye dhalinyaro waxa jira dad wanaagsan oo fiican oo waxa nacaya waddanka jecel meelaha ka shaqeeya way soo tuurayaan si dadku ogaadaan waxa jira qolo saddexaad baa jirto waxa rubama mukhaabaraadka caalamiga Djibouti waxa jooga ciidanka adduunka oo dhan Mareykan baa jooga Faransiis baa jooga way dhageystaan marka in waxa laga yaabaa mukhaabaraadka caalamiga dhageystaan ay soo tuurayaan لماذا؟ لأنه إسماعيل عمر وح أركرنا مركز الدون كله يجوا كبيه سيبه وري دولدي ركبته كسر قناعيان وأنا نحوق بدنه بريجور سير دولة سجاس شكي فرانسيس وحاس قبصي وزارة كوبريشن كا هي وزارة يعني محرضة عيدا مضى دفاعا يو أمنية وحارس إسماعيل عمر قال دولتي اللوديو معها فرانسيس كل حدا وحنا أنا قف كلا وقبته عارض إنك كسر موسى أحمد لا ونحرسته ما قرده waxay yiraahdeen haduu Ismaaciil madaxweyne noqo way waddanka baabinaya marka Soomaaliya labaad ma rabno ninka xooga badan ha qabtay marka iminka si waxay ku xajinayeen waxay ninka xooga badan buuha marka iminka waxay leeyihiin xoogiisii badnaa ma jiro waa daalay waa laga reebi karaa waddanka waa laga reebi karaa Mareykanka waxa ninka Congress ka shaqeeyay madhow wuxuu yiri Ismaaciil Margeele waa nin wax walba ka suurta galaan waxa ka suurta galay inuu Mareykanka xitaa ciidamada baxasi xamsada barbar u sameeyay ruushka oo keli baxa inuu Mareykanka baxa ka dhacdo natiijada ka dhalanaysan uu ka fikirin sida daraadeed buu Mareykanku wadamada jaarka sida la sheego la qarqarayo Soomaaliland oo kale qarqarayso waxa laga sheekeystaa barbaro kale inay soo degaan ciidamada Mareykanku laano ruushkii sheenihi Mareykanka baa ka wada fadhiyo dhagiiba isma qalayo asraartiba waxa isku jiraan dhowr kilomitir labadii cadow adduunka ugu weynaa ee islaanay baa isku keenay meesha marka wuxuu ninka Congress ka Ismaaciil Margeele wax kasta ka suurta gala cabsidana way gaaradu way hayaan marka waxay leeyihiin malaha fashiliya marka taasina way dhici kartaa meesha ka imataa way aan ku gudubno dhinaca madaxtooyada waxaan eegi doonaa Djibouti maciishada iyo sicir bararka ayaa cirka maraya dadkii saboolka ahaa waxba way gadan kar laayihiin xaalkan uu sii xumaanaya ama uu ka sii daraya iyadoo ay saa tahay halbowlayaasha u waaweyn ee cuntada ka soo baxdo waxa haysta qoyska Ismaaciil sida hadda aan ka hadlaynay warshada baastada waxa haysta wiilkiisa oo Liibaan la yiraahdo warshada caanaha waxa haysta wiilkiisa oo Caynaasho la yiraahdo warshada saliida waxa haysta gabadha Naziil la yiraahdo oo ay marwada koowaad ay dhashay gaaska waxa lagu karsado waxa haysta Najiib oo marwada madaxweynuhu ay isna ay dhashay korontada waxa haysta madaxweynaha inaadeerkii jaamac Geelle ama jaamac Ahmed Geelle oo 43 sano isagoo korontada hayay korontaduna waa waxa ugu qaalisan ee loo hadal haynta badan yahay magaalada Djibouti maciishadii iyo qoyskii Ismaaciil Cumar Geelle maamulkoodii dhinaca raashinka iyo maaliyadda sidee isu keeni karaysa waxa aad ka hadashay oo dhan oo jira iyo waxa yaa badnaa maalin dhaweyta waxa la yiri waxa la dooranayaa madaxweynaha xisbiga dalka haya oo loo yaqaan RBB shirar bay galeen way oran kari waayeen ninkan hal la tartamo يعني waxay cajiibkan ku tusay calayo way cabsidu halkay gaarsiisan tahay
markaasay yidhahdeen wax nawadi kara ma jiro adigaan hayna ku soo noqo markuu khudbadda soo koray wuxuu yidhi haddana mar kale ma tirahdeen haddana mar kale ma tirahdeen way kan deeyeen yani waxaa jirta aayad quraan oo yaa badan fircawn baa la yidhi marka uu dadkii isdhiibeen wuxuu yidhi fastakhafa ilaahay qawmahu fa ataacuuh intuu duliyeystay uu yaraystay iyo ku adeeceen weliba sidii oo markaa buu ilaahay maxay saa u yeeleen dee iyakii baa nolosha ka dhacay buui innahum kaanuu qawman faasiqiin okay ninka sidaas waxa aad sheegto o dhan waa wax jiraan inta badan waxaad kaloo ilowday waad sheegin xadiidka birahan xadiidku gala guryaha waxaa le nin saaxiibkii oo dhahdo xaaska ale madaxweynaha le jaamac baa dhahdaa waa prokureerka waa ninka oo maaragtay xeer ilaaliyaha minuu lacag faraha la galaan hayn baa le qalabka dhismaha oo dhan marka dadkii xadiidkii ay keenayeen waxaa lagu sameynaya Djibouti warshada Hindiya la soo ballamay halkan baa lagu sameeyaa halkaa baa ka marka waa saas oo kale waxa kaleeto oo jiro soo biiray wax loo yaqaano oo ayaa badan weeyaan waxaa la yidhi sida Yurubta iyo reer galbeedka waa inaan cashuuro sameyno wax walba waa la cashuuray ilaa mishaarooyinka waa la cashuuray mishaarooyinka marka hore yaraa yaa la cashuuray arrimahaas oo dhani aad sheegtay iyo waxa ku soo biiray waxay keeneen Djibouti berigii hore waxaa jiri jiray dabaqad dhexe oo aad u fiican macallimiinta oo kale mishaar fiican bay qaadanayeen dhakhtarada waxaasoo dhan dabaqad dhexe jiraysa iyo in yaroo lacag leh oo badanayn oo 30 qof aan dhaafin iyo dad fara badan oo hoosta laakiin waxay ku noolaan dadka fara badan hoosta maadaama mujtamac naxariis la isku yahay Soomaalida iyo cafartu waxa lagu noolaa dabaqadan dhexe waxay soo gaadhaa dhaadhacay waxa baabaaday dabaqadii dhexe waxay ku biirtay fuqarada mishaarka ay qaataan ma fil midna macallinku wuxuu qaataa 600 ilaa 700 dollar korontadu Djibouti waa korontada maaha ugu qaalisan 300 bay noqonaysaa korontada mandiqada maaha adduunka taween dadku gataan ma aan arag dunida intaan marayay meel Djibouti lamida korontadeeda lacagta la bixiyo 300 waxaa bixiya dadka masaakiinta qofku hadduu isticmaalo qaboojiye aqalku qaboojinaya iyo maaragtay wixii dharka lagu maaragtay kaawiyad iyo waxa hadduu isticmaalo iyo bahaladii cuntada lagu ridqay iyo oo maaragtay waxaas oo dhan waxay kugu soo qoraysaa 500 ilaa 600 dollar mishaarkiina ku sheegay marka hadduu qofku is ilaaliyo 300 400 dollar ku soo qoraysaa dadka masaakiinta ah ayaa bixiya wax ku dhow 50 dollar 60 dollar laakiin dadku dhaxdo mishaarkoogu korontada waa qaali korontadii intaa waxaa ku dharbiyihiin oo iyakuna ka agdhow waxaas markay kaa qaataan raashinkii oo wada kacay baa jira iminka waxaa jira mujtamaca reer Djibouti dad aad u fara badan oo aan cunin waxa loo yaqaan hilib cad meelaan mar hore ugu dambeysay kalluunka oo dadka reer Djibouti ay aad u heli jireen shirkad baa qaadatay nin waxa loo dhiyay madaxweynaha qarabayay kalluunka isaga marka soo ugaarsada isaga qiimeeyo inta ku iibinayo kalluunkiina way qaateen wax wal oo wadanka ka jira waxa yeeshay qoys yar qoyska marka la ma qabiilka madaxweynaha qabiilka wuxuu gaajoonaya family hoose waa qoys yar okay marka waxa dhada mujtamac marka gaajo ka dhacayso waa marka ay baabaado dabaqada dhexe dabaqada dhexe hadii isku soo urur dabaqad sare iyo mid hoose oo dabaqada sare oo yar dadku laakiin waxay aad u la yaabaan laba arrimood dhismaha Djibouti aad buu socdaa guryo waaweyn daaro waaweyn yaa la dhisaa dadku waxay raadaan faqri baa jira iyo guryo iyo daara dhismaya isma leh waa number 1 number 2 dadku waxay la yaabaan ilaa iyo dhowr boqol 300 400 oo qof oo istaqaana waxay ka casheeyaan ay ka qadeeyaan ay ka quraacdaan hoteelada ugu waaweyn Djibouti intaas waxay u haystaan wadanka inay lacag ordayso inta waa inta ku tashatay lacagta wadanka inay boobaan marka ibn khaldun oo dhacdo oo cilmiga bulshada ku xil dheer wuxuu dhacdaa dawladuhu marka ay burburayaan waxa bata dhismaha muqdisho goorma dhisantay xoog dagaalada kadib kaas hargeysa sax u dhisantay maanta Djibouti dhismaha ka socday waa qeyr caadi faqriga ka socdaani waa qeyr caadi xaafadaha dadka masaakiintu ay galaan way sii dumayaan afar aqal iyo afar bandaladu waaweyn oo qurux badan la dhisayaa
tunis waxaa la sheegay markuu Zalcabidiin bixi doono 2 sano 3 sano ka hor wuxuu dhisay guryo wada jadiid oo wada cusub oo lagu qadaray ilaa dhowr kun oo guri 5 kun 6 kun oo guri iyo wada ka dhisay ilaa uu madaxweyne Faransiiska Sarkozy uu yiri waa nin lagu dayay Zalcabidiin sidoo wada ka hormar u gaarsiiyay waxa la ogaado hurdo laga kacawan markuu ina kiiraas gubay Bouazizi ay maxaqidi loo ogaado akaas marka waa faqrigu meesha uu socdaa sicir bararku halka uu socdaa wixii asaasiga dadku iibsan karaan mishaarka uu qaato macalinku ma gaadhiso mishaarka uu qaato ninka dawladda u shaqeeya waxa loo qaybiyaa saddex darajo kadar C iyo B iyo E C du waa qofka haysta matalan shahaado 12 B gu waa qofka haysta 2 sano oo jaamacad ICT qofku haduu E gaadhana waa qof haysta shahaado license iyo wixii ka sareeya mishaarka ay qaataan intaas oo dhani 600 ma dhaafsan ma dawladdu waxay ku kabtaa wax dhacdo gargaar ku kabtaa qofka marka meel loo mamla lacag badan la siiya oo mishaarkiisa ka badan taaba ilo siiso dad fara badan waxa isku diraa marka reer Djibouti oo dhan in la magacaabo aniga meel lacagta liigi waxa lagu mashquulshay ka wadanku wuxuu ku jiraa yani halis ku jiraa way aan ka gudubno Djibouti sidaan la socono dhawaan waxa masiibo weyn ka dhacday magaalada Beledweyne Sheekh Cabdiraxmaan waxa la qarxiyay 2 qarax baa ka dhacay guud ahaan dadka waxa lagu qiyaasayaa in ilaa 60 qof oo shacab u badan inay ku nafwaayeen ama ay ku dhinteen 120 qof qiyaasteena ay dhaawac yihiin qaarkoodna ay halis yihiin qaraxyada naxdinta leh ee argagaxa leh waxa mar walba qirta kooxda Al-Shabaab maadaama adu waatay nin culimo ah oo daaciya waxa moodaa in qoladan Al-Shabaabna waa niman wadaado ah oo diintii garanaya oo diinta islaamku inay nabad dhaliso mooyaan aanay isqarxin iyo dagaal iyo rabash aanay marnaba ku baaqin markuu warsa sida aragtid qaraxyadaas aan ku weydiinay mar labaadka qaybta u weyn ee musiibooyinka ka socda Soomaaliya culimada ayaa guud ahaan idinka u badan ma la oran karaa okay horta akhi fillah walaalkay Soomaaliya dhibaatooyin gelin dhalinyaradan la dhacdo xarakatu shabaab ururka shabaab dhacdo waddanada Afrikaanka qaar waxaa Boko Haram meelaha carabta waxaa la yiraahdaa qaacida iyo dawlad islaamiya waxay la baxaan dadkaas maxaa keenay waa su'aal ila baadha ani marka aan daba galay waxaa keenay dhowr arimood lambar 1 waxaa keenay waxa weeyaan dadkan wadaadada iyo culimada wax baray baa markay bislaadeen ka hadhay markii hore waxa la isla ogaa jihad aan gallo ayaan la galnaa jihadka Ethiopia waddanka qabsanaysa gaala imanaysa kuwa aan la jihadno markii culimadii ay bislaadeen ay arkeen in Ethiopia jihad waxba laga qaadi karay reer galbeed iyo Mareykanna jihad laga qaadinay markay arkeen ay meel kale u diga rogteen culimadii dhalinyaradii la cabeeyay kululaaday oo ka hadheen in yaroo wadaadana meesha ku hadheen marka meesha waxa isla jooga waxaan culimo maaha waa culimo u eg iyo dhalinyaro fara badan oo 20 jir ka yar oo madaxooga laga buuxiyay afkaar asaxay taas way keentay midda labaad ee keentay waxa weeyaan dulmiga adduunka islaamka ka dhaca dadku ka cadhaysiin dadkii marka inay argostaan bay doonayaan argosigii bay ku khaldamayaan meesha ka argosan lahaayeen iyo meesha ay kala galneen taas waa keentay arrinta saddexaad keenaysa waa faqriga iyo baahida iyo gaajada qofka Soomaaliya joogo dawladda shaqo ka heleen meel ka shirkad waxba ka heleen kaarakan $200 ka qaado ayaanta jannada ku diran is qarxi inta kale gaalaha dheer joogo dagaalan xaqan buu iska tagaya marka arrintaasina way keentay arrinta afraad ee keenaysa wax weeyaan islaamka saxda ah oo naqaanay oo ku soo dhaqmeynay 1400 sano ilaa shalay mar islaamiga noqday dadka laba barin madhabkeena Shaafici fikirkeena islaamiga laba barin waxa la baray waxa buuraha dibadda ka yimid yaa la akhriyo waxa boorta keenaya qoladan haddaan ka baxa intaas qaraxan ay sameynayaan oo ay qarxinayaan dad maaragtay rayida ay qarxinayaan maskaxda dadka gabadha shalay la dilay gabadhaas marka la dilay waa gabadh cilmi leh ilaa maanta jaamacad dhigata waa gabadh wadaada oo quraanka xafisan waa gabadh maxaan ku idhaahdaa ku jirta maaragtay baarlamaanka oo halgamaysa waa gabadh xuquuqda bini'aadamka u dagaalanta gabadhaas iyo wixii la halmaalaba marka la dilayo yaa
waxaa meesha ku jira waxa weeyaan dagaalkii Ciraaq waa inaan xasuusnaano oo ahaa in dadka laga tirtiro dadka ilidka aqoonta leh oo ay isku soo hadhaan dadka doqmaha oo meel u socdaan ayna jirin gacan shisheeyana kama maqno gacan shisheeye kama maqno amba carab ha noqoto amba wadamada jaarkeena ha noqoto kama maqno gacan shisheeyana okay aniga markaa waxay ila tahay arrimaha maqan ee Soomaaliya ka maqan waxa weeye marka cilmiyan lagu eego diiniyan lagu eego siyaasadda saxa ka maqan Soomaaliya waxay dhacayaan waxani waa goorma waa marka lagu jiro in la kala guur marka lagu jiro ay dhacayaan waxaan dhageystaa anigu hadda waa la socotaa siyaasiyiinteena Soomaalida maxay ka hadlaan nimka dini maalintii uu ku hadlay muxuu yiri cadowgeenu waa madaxweynaha erino cadowga Soomaaliya maaha farmaajo maaha cadowga Soomaaliya xasan sheekhna maaha حسن خيرنا معها شريف خليفنا معها ديننا معها عدوك صوماليا عدوك صوماليا ما أنت لمبرون مع شباب صح محو استعماله ويا كلمة وإن ترترنا شباب إنه مدحوين فرماج ومواطن صوماليا صوماليا أنا حقه لين يسوع عليان لين إريان مركا هذه حكومتها لها إرينو وحتى هذا أنيقو نكابة لا ترتمي وين إريان مركا واحد كنت سيسا بسيل سياسي صوماليا ميالو ما إنه روح عن كهله والبروريتيك نيكا سياسي واحد تمنك قف اسكو كرسي صوماليا فيلا صوماليا بل انت اي فارستان نوصل بدغان بروجكت maxay uga dhigayaan farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo hebel kuwana maxay uga dhigayaan hebel war adiga project umada soo bandhig waxaan wadaa mashruuca sidaas laba waa inuu ka noqdo number 1 tirtirinta shabaab shabaab tirtiraya imika markay Tigreeg way dagaalamayeen soo kaceen وأدي صام حيسوق قاعد به 300 كيلومتر يعيش السؤال واضح يعيش تقريبا تركيا يعيش إمارات كعلية ما هيكون عليا درونسكي هذيك دولة الصومالية واحد يسرح لك تركيا درام كان ترتر شباب كان ماشي فديان بدرام ما قاعد كريان ولا ترتر شباب كصوماليا واحد لقوا ترتري كريا لا بعشوا قد الله حمان قاتل لكن لو مجيد لكن لما ربوا ولا قولوا سنة أريتك الدولة دي مثل الصومالية هي ديدة ما تقانا شيخو رتا بدبض يواجهال دولة الصومالية واحد ديدة بايع مشترك الصومالية ما القبيلات الصومالية ما أقول إن دولة لأنه واحد كل رجين دولة الأنطا دنيو مجرته واحد ديدة أضياشها لأنه أضياش واحد يكونوا لين دولة الأنطا واحد ديدة سياسيين سدا إن الصومالية أهاتو ولا كل رجين أديك كورن ما أنت سياسة صورنا تركيا قال كردستان إسطنبول دبي قال كردستان نيروبي قال كردستان مركا هذه الدول دعوة حماية راح يكرسها ما راح مركا السياسة حموي ما كنت ماشي سياسة حموي شباب كوحة كان يا وح الله يقنا فرق سياسي وح نجري سياسة دي بقى مرة وهي مرة سياسة وهي أكيد إنه قبل برنامج كان يشوفنا وحنا بس كمان بلنا دوه هذا الشيء دجال عالم كسامي هاتن كسعودة ودحية روسيا iyo Ukraine dad badan baa markaa saadaalinaya in hadii in ay aad u dhowdahay in la isticmaalo hubka nuclearka oo ah kii dadka ama dunida baabiinay ka Sheekh Cabdiraxmaan ahaan sida aragtaa dagaaladaas iyo saameyntooda horta dagaalkan baan hore ka hadlay waxa keenay laba arrimood waxa keenay waxa political geography siyaasiga taas kuuka number 2 waxa keenay in Ruushka iyo Shiinuhu rabaan إن الدنيا ديجا رجوتو نظام كي أمريكا كل يحكمه إلا لا حكومة دونك لا بدأ شيء نيكلا يراهدو ألكسندر دوكان ولا مسكحة بوتين وشاقي وزير كريمة هدي بدأ لافروف ما عنده توحولي وين دمعتي وقت يقول أمريكا ودونك كل يحكمه مدة في نيكلا ولا بدحوينها كرزارها كها ما عنده توح الله يسنو حولي وين دمعتي وقت يجي أمريكا ودونك يحكمه مركز دجاج وجديد أساسي وحويان مركز تقول دجال عالمي يدعو نظام عالمي أبورمو نظام كي عالمي كوبات وحكى أبورمو دجال كي كوبات الدنك أو كي جمعية القرآن تي كورس اللي سميه دجال كي لو الدنك واحد أبورمو ماشي نظام كي عالمي دجال كي كوبات مركو روش كدعي لقب صدق العراق يبرق دحنا نظام كي ست حرب أبورمو أو هاي مركو الدنك أوطاليو دجال كي يوكرين وحوس منها نظام كي أفراد الدنك كتلدي بركة ما أنت نظام كأفراد يتلين دونه وكاس ويا تابع دجال كهتي ما دعي كرا دجال كنيكلير ما يعني إلى ما ينو دعي كرا لكن
haddii uu Putin ku adkaato arrintu wayna ku adkaatay saad arkaysid ma ogolaan doono inuu haybadiisa iyo sumcadiisa ay dhulka gasho si tactic ah hataa batagaan Mareykanka saaran si tactic ah wuxuu isticmaali doonaa hubka nuclear si tactic ah sidii Mareykanka u isticmaalay Japan ku weyn ma si tactic u isticmaalay naxdin waxbuu dam ka siin doonaa markaa wayaaci doonaa markaas waa laga yaabaa intaas isticmaal laakiin si weyn loo isticmaali karo maxay leeyahay dagaal caalami ah dhici kara kaas Sheekh Cabdiraxmaan su'aal ka duwan dhinaca siyaasadda oo dhinaca diinta u badan baa ku weydiin doonaa su'aashaas waxa weeye baraha bulshada waxa maalmahan u dambeeyay ku jirtay in roobka la sameyn karo nin aqoonyahan ayaa wuxuu ka hadlay in uu jiro chemical lagu buufinayo daruuraha oo la da'inayo oo roobka uu soo da'ayo ama dalalka qaarkood ay iska xadaan مثلا haddaynu tusaale soo qaadano roob ka dii lahaa Soomaaliya ayaa la xadayaa wuxuu ka da'ayaa Ethiopia arrintaasi diiniyan sida uu egtahay maxaad se ka oranahay horta waan dhageysto dadku soo uga sheekeynayaan diiniyan iyo cilmiyan ba dadkeena waxba ka laaqan horta roobku siduu u doo waa la daraasay cilmiyan waa la gaaray soo roob u daa goor muddaa halkuu ku daa wararka marka dhageysto berito roob baa dii karaya beri hore gaaladu waxay oran jireen marka sheega roob baa daaya 30 sano ka hor waxaa berito hore roob baa saacada daaya imika way bidaxda iyo tawaqa waxa la filayaa inuu roob doo waxay ogaadeen inay jirto quwad iyaka aan ahayn oo roobka xakunta bedeli karta hawadu saabay noqontaa way bedelataa marka hadalkii waa qooqi binaadka uu yareeyay wuxuu ku soo laamay inuu raado waxa la filayaa saacadaas oo dhan taasoo mid kood weeyaan arinta labaad waxa weeye quraanka waxa ku qoran ilaahay baa roobka soo dejiya number 1 meeshuu ku soo dejinaysa isaga qarar ka qaata soo dejinaysa isaga qarar kale oo number 2 number 3 saddexaad waxa weeyaan binaadku ma gaari karaa inuu roob soo dhaxeeyo cilmiyan ha binaadku uu gaari karaa inuu roobku marka la arko soo culayska soo in la soo jiidi karo oo deesin karo laakiin binaadku ma gaari karaa inuu roobka meel ka muddo meel taa wala ma gaari meesha roobka ka jooji meeshana takaleeto waxa Soomaalidu waxa yaab ku yihiin Ethiopia roobka naga xado Ethiopia dawlad Mareykan ba dawlad European ba waxaan waa qalad weeyaan arinta kaleeto ee aadka u yaabka badan waxaan roob la'aanta Soomaaliya ka jirta waxa sameeyay Soomaalida waxayna ku sameeyeen markay xaageen ay mariyeen geedii roobka waxa soo jiidan jiray geedaha waa sunna ilaahiya geedii roobku waayay marka abaaraha waxa badiyay waa annaka ilaahayna wuxuu qul huwa min indi anfusikum inaka isku wacan bilaahi marka wax Ethiopia roob naga qaateen ma jiro waligeedna Ethiopia buureego way naga roob badnaayeen wana garano meesha Ethiopia buureego way naga roob badnaayeen dhulka Soomaaliduna way ka roob yaraayeen waligoodba boqolaal sano kuma ku sano saas baa maanta ana sidoo banahay مثلا سؤال ugu dambaysa الشيخ aan ku weydiinay waxa weeye inta badan waxaad ka hadashaa barnaamijyo ku saabsan dhaliilaha dawladda Djibouti dawladda Djibouti ama Ismaaciil Cumar Geele wuxuu ku haystaa inaad tahay cadawga koowaad ee Djibouti laga yaabo in aniga ka hor dad badan ay sidaa ama fikirka ay ku weydiiyeen adiga iyo Ismaaciil Cumar Geele ma wax gooniya ama dagaal gooniya baa idin ka dhaxeeya mise waxaad ka hadashaa xaqiiqo ka jirta Djibouti sidee soo aragtaa horta Ismaaciil Cumar Geele xaqiiqadiisa ku sheegay waxaan geli anigu waxaan nahay qaraab waxaan nahay habro wadaag hooyadii waa ilmaade rama waanan hooyadeyna ku soo kortay xaafadooda anigana nolosheeda waqti kamid ah xaafadooda ku koray mar abaay hooyada ay kala dadmada Soomaaliya marka wax shakhsiya lagama dhaxay in badan wuxuu isku dayay inuu wax weyn siiyo si aan uga aamuso laana masjidka Xamuud baan ka qabay Djibouti weyn xaq sheegi jiray waxa iga soo gaaray mashaar la iga gooyo waxa iga soo gaaray shaqado la iga eriyo wax badan baa iga soo gaaray marka dambeeto waan u tagay waan waaniyay saddex shay baan waraqad baan u qoray waraqad baan quraaniyo culumo arinta ugu weyn u sheegno waxay saddex arimood waxaan ku hornaa meesha waa la wada leeyahay hal ugu la yeesho عادي هذا كان قرنتها ورقد وقرنها ماشي ما وضل لنا هل ugu la yeesho يا yeelanay markuu magac baan u sheegay daahir daafni ka dhacdo friidka ku yeelanay Cabdulrahmaan Buura ku yeelanay Nimca Jaamac ku dadkan weedakay ku leeyihiin laga malay arinta labaad waxaan ka oranay wadankan uma baahna wax badan in yar cadaalad u baahan yahay in jir cadaalad sameeyo arinta waxaan ka oranay warbaahinta adiga magacan baad ka hadlaysaa ma aragtay geeska Afrika wadanka quraatay hal telefishan loo inaan naqo way dadku waxay aqli yeeshaan wadanka quura hatta maartay Somaliland oo adduunka ka ictiraafsaneen maxay leedahay
تلفزيون معارض له هو محافظ له ووطن كقولة واحد من إريتريا هل تلفزيون هل راديو هل جورنال قف هل ذكر يمجرم وحنقول تذكر الله بس كنا بتقولي وحنا قيلي ماشى تكونوا شهين ماشى وحكربتين معها أريد واحد كده أنا شيخ عبد الرحمن بقى شيخ رادو شيخ غير شقوي كده لغيريو ولا عذاب ولا جوجيو كدي ما حرناه ورد دلك وحبها هي إن عبد البادين معارض وان أوروني USN بان سميني معارض وتيد دقارك لقى شيء دورشيد وانا كي كبدني وكيلنا لحرحري waxaan qaatay sanad iyo 8 bilood 6 bilood sheekada saaxiibadana way qaateen waxaas oo dhan maxaa keenay hatta aniga wuxuu yiraahdaa haduu xeerku ii saamaxayo waan dili lahaa ninka haduu xeerku ii saamaxayo waan dili lahaa inta in ka daran buu yiro wax badan buu sameeyay oo maaragtay in la isumeeyo la isku day wax badan baa la isku day laakiin ilaahay baa qadarin tabaaraka wa tacaala marka isaga personal attack ma jirto waa walaalkayba waxaan arkaa maanta haduu ii dhageysan lahaa waxaan ku oran lahaa boqor yar baan ka dhigaynaa iskaga tag meeshan aan ku sharfaynaa magac baan ku yeelaynaa ilaa iyo imika waxay dhahdaa ninkaasi aniga waa walaalkii weeyaan waa habar wadaag baan ciyaalkiisa adeeraan u ahay laakiin dhibaatada dalkayga ayaa u dhaqmaday Soomaaliya ka hadlaa u damqadaa Soomaaliland baan ka hadlaa u damqadaa Ethiopia ka inta markaad sameysay lagu cadaabay ee lagu dhibay miyaa lagu musaafiriyay mise adaa iska uga baxay jibid markaa ما أنا كمركي هربا حاس كيجا شقة كهش كندا. أوكي. أنا قحوتي من تطبع هذا شيخ وقحوتي ومشار أنا تام معني حاس كيجا شقة كهش كندا. شقة على لوجي يعني أنا كوبس أسد قليل بقى. وأنا كده ويمدي كدي مركان وارك وقت كين وان نقضي. مركان حبس يا كسب حي. بان أوي بدي حاس كيجا مرلبات. وحنا قلت لك على إن نقضه. أنا نقض كي نقض إسله. بقى دhamaaday baasaboorkii wadanka waxaan u diray safaaradda Mareykanka si lagu soo cusboonaysiiyo baasaboorka laga qaatay bila warqadana ilaa warqadaha kala helay badhooyto marka leeyma ogolayna Djibouti ku laamo marka wasaas weeyaan aad iyo aad baad mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir aad iyo aad baad waqtigaad nasay adigu mahadsantahay aad mudan walaalkay adiga iyo telefishanka iyo walaalaha maaragtay technician-ka ka shaqeynayay dhinaca maaragtay sawirqaadka iyo qadarkaba hagaag ويا داود أنت سأيان كسو كوبيا ورئيس عن لا شيء أقول يهان داعي شيخ عبد الرحمن بشير أو استوديها لو صبغي سو كنا لسه سأتعامل بمجال أوتوا يودنك كندا شيخ عبد الرحمن وعن كورسني سياسة الجود عالمك جيس أفريقيا يولي ودنك جيبوتي تاني كلنا كان دبين تن ورئيس كانوا كلا يسوي من ضمن مركله أنت كورسوا على حرارة ولما أنت بدك تجي سلايو نبت قليل